السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa Idris Abaadir Cabdi waxaan deganahay magaalada San Jose. soo dhawaw waxaan rajeynayaa haddii aad videogan daawanayso in aad insha Allah aad u timid Abaadir Academy koorsada ku saabsan sida loo dhiso loona hagaajiyo loona abuuro credit. xaqiiqatan waxaan rabaa marka hore wax dad badan qabsaday oo aniga aan ku jiro inaan idiin sheego. waddankan aan joogno waxaan ogahay oo aniguba igu dhacday aan markhaati ka ahay markaad timaado waxyaalo badan baa lagu sheegayaa sida shaqo loo helo, sida iskuulka loo tago, sida maaragtay baska loo raaco, baabuur sida loo soo qaato, bangi sida loo waxyaalo badan. laakiin waxaan ka dhex waayay waxa credit la yiraahdo qof iiga sheekeeya ama dad ama hay'adii keentay Allah ka dhigo waaga nimid barta. marka caadiyan sida ay ahaydba dad badan baa systemka ayagoo aan garanayn ku dhacay oo recordkii ka halaabay bad credit noqday. dad badan baa jirta luqad ay ku adag tahay fahmi waay waxay tahay. dad waxaa jira waqti u waayay, dad waxaa jira isdhahay waxaan wax weyn ma aha, isna la big deal maxaa looga baahan tahayba. laakiin tusaale yar baan ku siinayaa. maanta haddaad guri kiraysanayso, haddaad gaari renta la soo qaadanayso, haddaad gaari soo gadanayso, haddii aad telefoon soo daysanayso, guri haddaa gadanaysa iyo ganacsi haddaa bilaabaysa xag iskaba dhigba. laakiin waxyaalaha ugu yar ayaa waxaa ku xiran credit. haddaa bad credit tahayna waxaa dhacaysa in lagu diido ama in lagu xujeeyo inaad lacag badan oo deposit ah samayso. ilaa system ahaan waxay ka dhigan tahay laguma aamini karo, inkastoo aad adigu tahay qof aamina oo maaragtay maanta wixii lagu dhiibo lagu imaanayo. laakiin system ahaan saasay ka dhigan tahay. khaladkana waxaa keenay aqoon darradii ugu horreysayna qabsatay. haddaba maadaama aad waxaas oo dhan aad oga baahan tahay credit, ma og tahay xuquuqda qofka deen qaataha ah la siiyey in ay ka badan tahay xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha deenta bixiya ama shirkadaha kaydiya recordka sida TransUnion oo kale iyo labada shirkadood. mase og tahay in aad free credit report inaad xaq u leedahay sanad walbo 3 beeru min hal mar. 3 beeru ama shirkado ugu waaweyn ee kaydiya recordka midba waxay ku ogoshahay mar inaad free credit report ay ku siiyaan oo aad lacag ka bixin. mase og tahay wax walba oo recordka kugu jiro oo kaa haleynaya creditka inaad ka daba tegi karto, kana saari karto, kana tirtiri karto muddo gaaban adiga oo aan la kaashanaynin shirkadaha scammerska ah ee lacagta kaa qaadanaya ku dhahaya mataqaanaa credit baan ku hagaajinaynaa iyo waxaa ku dhahaya. adiga dhowr tallaabo aad qaado inaad ku samayn karto creditkaada dib ugu soo celin karto. ma og tahay? haddaba koorsadan waa Soomaali qayb kaloo Englishna waan samayn doonaa insha Allah. balse qaybtan waxaan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. koorsada waa free waa bilaash, wax lacag ay kugu cost gareynaysa ma jirto. waxa kaliya laga rabo waxaa weeye waxa aad ka barato inaad dhaqan geliso kadibna aad noo soo sheegto
siday koorsadan kugu faa'iidaysay. waxyaalaha koorsadan aad ka baranayso waxaa ka mid ah tusaalaan ku siinaya. waagaad waddanka timid baa waxaa u tagtay kambaniyada taleefanada T-Mobile oo kale. biil carrada ka badan bay kuu soo direen oo adiga ama isticmaashay ama si khalad ay kugu soo direen. waad xanaaqday baa isaga tagtay shirkad kale u tagtay. dhowr boqol bay kugu yeesheen, warqaday kuu soo dirdireen, ama adreeska aad kasoo guurtay ku dhacday, ama haddii kale ma aadan helin ama waad heshay oo waxaa tiri anigu lacagtaan liguma laha xaq uma lihi. kadibna waxaa samaysay sidii bay T-Mobile ay biilkii markay adiga kaa heli waayeen ay oga gateen kambaniyada la yidhaahdo collection. kambaniyada collectionka dad sidaadoo kale ayaa iska leh, dowladda ma laha, waa private companies, private sectors weeye. waxay ka ganacsadaan deymaha dadka lagu leeyahay ayay waxay si raqiisa ooga soo gataan shirkadaha deymaha ku leh. kadibna lacagtii oo interest iyo penalty iyo fee ay ku dareen ayay qofkii ka raadiyaan ay ka daba tagaan. haddii qofka ay jawaab ka waayana shirkadaha kaydiya recordka beeruga ayay u diraan si ay ku geliyaan bad credit. hadhow markaad ku aragto systemkii in maaragtay recordkii bad credit lagu geliyey si aad iyaga ula soo xiriirto lacagta u siiso. ma la socotaa in aad xaq u leedahay inaad wax walbo oo recordkaada ku jiro oo bad credit ah inaad dispute ku samayso? micnaheedu waxaa weeye ka daba tag inaad ku samayso. markaad ka daba tagka ku samayso inaad xaq u leedahay 30 beri gudahooda in lagu keeno original documentski oo ah maalintii aad contractigan saxiixaysay xilligay ahayd waxay ahayd originalkii in lagu keeno. hadday 30 beri ku keeni waayaanna in ay shirkadda recordka kaydiya ay ku qasban yihiin inay kaa saaraan recordkaadaas, mar dambana aan lagu soo gelin karin. mar walbo oo hal xabo ama labo ama saddex lagaa saarana in scorekaada uu kor u kacayo automatically ay isku xiran yihiin. mase ogtahay haddii xataa ay original documentiga keeneen in aad qaab yar oo aan lacag badan ahayn aad oga bixi karto, creditkaadana kuu soo laabanayo. dad waxaan aragnay lacagta original amountiga 3,000 4,000 ahayd, deal bartay qaabkan hadda aan nibari doono maray, lacag aan badnayn laga qaadan lagana saaray. dad waxaan aragnay shirkadihii ay soo jawaabi waayeen 30 beri gudahood, lacagtana lagu lahaa horay, recordkoodana laga saaray. marka waxaa halka ku baranaysaa a lot of tips iyo tricks meesha u mari lahayd, website-yadii aad mataqaanaa aad dispute ka samayn lahayd, qaabkii aad u samaysan lahayd, iyo qaabka recordka aad u jeegarayn lahayd, iyo free credit report sidaa u heli lahayd oo dhan ayay koorsadan kuu soo aruurinaysaa. qofka creditkiisa fiican yahayna waxay tusaysaa sida uu meesha uga sii ambaqaadi lahaa oo credit fiican usii dhisan lahaa. qofka cusub ee hadda maaragtay bilaabayana waxay tusaysaa khaladaadka la rabo inuu iska ilaaliyo iyo sida la rabo inuu creditkiisa u dhiso. ogaaw haddii aad waddankan ku nooshahay waad u baahan tahay credit fiican. koorsadanna waa free, ka faa'iidayso ayaan leeyahay insha allah. waxaan rajaynayaa markaad videogan daawato inaan insha allah kugu arki doono dhanka kale si aad koorsada u dhammayso. khayr baan ku rajaynayaa. wixii su-aala fadlan email noo soo dir ama taleefonkeena website-ka ku qoran inoogu soo gudbo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.